waxaan ku suganahay suuqa ugu weyn magaalada Cadaado ee lagu iibiyo xoolaha waxayna dadka aan ka wareystay suuqa iyo sida wax loo kala iibsanayo maanta waxayna inta badan dadka ku sugan suuqan Cadaado ee maanta soo safarsaday xoolaha ay sheegayaan in xoolaha xaggooda ay ka jirto xumi aad u daran isla markaasina abaarta ka jirta deegaanada hoos yimaada Cadaado ay dad iyo dunyaba aad u saameysay waxayna dadku ka warameen qaabka ay u jirto baaxyarida ka jirta suuqa Cadaado saaka waxaan ku arkay awal $70 neefkii ahaa neefkaan oo kale maantana 150 Soomaaliya ah laygu baayaa 450 maxay u sarrifantaa saddexda neef ya $15 saddexda neef la siintana ariguna ka soo xula aan qalanna la yiri markaas uu yiri maxaan shaah baan ku goobahaya shaah ila carram ma leh caanana ma leh 150 kuna la yiri oo Soomaali ariga ka soo xulay arina waa ka soo xul hala ii bad shaacir waa la ii badindii waa haya wali waa ku qayr dhowrahaya waa garta xoolihii aad ka soo xushay oo kala sidee ahaayeen wax baqtiyay iyo wax kor taagan bay ahaayeen marka kuwaan waa kuwii aastri waa kuwaan si waa socon karaan kuwaan isri weey ay qiimaha lagu gaaray xalaan neef maanta waa imisa 150 marisa sisaale oo Soomaali 150 Soomaali awalna meeqa ka joogeen suuqa Cadaado awal waxay ka joogeen $50 iyo $70 iyo markay dhiig galahay saas bay ahaayeen maantana waa 150 Soomaali awal $1 baa la siisan jiray suuq wax ma ana keenan wax noo gad ma hayana ma haysano waxa weey xoolihi waa baabeen hadii Ilaahay ba ku rooyay waa wax baqtiyay iyo wax dadkana waa dad tabaalaysan wax biyo u keenan male wax biyo siinahay male wax baad u keenahay male wax u gargaarahay male hadii dadkaas dad caalamka waxa uu sheegaynaa inay dadkaasi u baahan yihiin gargaar ariga keensatay saaka lacag ariba ma ana ka wadanay waa iska soo aadnay baabuurka ka dega had deegaankaasi far yar meel yiraahdo weeye dad 8 qoys ku nool wax u tageena male dhanka kale dad aan kula kulannay duleedka magaalada Cadaado iyo sidoo kale tuulooyin hoos yimaada magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Galmudug waxa ay noo sheegeen in ay dadku aad ula daaladacayaan xaaladda abaareed kan aan joogno si aad ay u saameeyay dad badan baan ku nahay qoys iyo laba ma ahan hadda ka horna biyaha aan cabi jirnay iyo waxa hadda yarka arigaas aan siisano dad qaraabaha na sii jiray aniga xoolahayga waa kuwa hadda baraagta dul looban waa gartay xaafadda dhaw muuqatana waa gartay barkadana anaga cabi jirno biyo ku shuba jirnay waa gartay dad badanina waa nala cabaa waa gartay hadii Ilaahay ku rooyo hadda waxa aan ku noolnahay talbaa na siiya wax anagu aan leenahay ma aha maanta sida jirta Ilaahay subhanahu qaadira hadii la ku horta abaarta naga bixi waa sax waa la jilicsan waa u jeedaa hadii lagu waxa meesha yaaliyaan oo iska daa wareegay qaarna waa dhamaaday qaarna waa ku sigayeen kuwaan xalay Ilaahay xaqiis marka u hadaayo xalan sidan habeen hore sidan saacadana ayuu madlanayn hadii alla ku rooyay hadeer aabahood waa istaagay goobtiisa sana garab sidii meydkii gacanta soo qabtaa